isbedel ka dhaca Kenya saameyn nooca ay ku yeelan kartaa Jubaland warkaana waxa ay akhrinaya wariyahayna Cabdifataax Durdur dalka Kenya oo ay 9kii bishaan aynu ku guda jirno ka dhacday doorashada guud ee natiijadeedii lagu dhawaaqay maalnimadii shalay ahayd wuxuu yeeshay madaxweynaha shanaad guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya ee shanaad loo doortay William Ruto oo helaya 50.49 boqolkiiba codkii la dhiibtay wuxuuna ka adkaaday Raila Odinga oo helay 48.8 boqolkiiba haddaba warbixinteena waxaynu ku eegi doonaa labadan dal ee ku wada jira midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD darisna ah oo xad dheerna ay wadaagaan waxa laga filan karo xiriirkooda iyo isla jaanqaadkooda isbedelka kadib Soomaaliya iyo Kenya ayaynu ka wada hadlaynaaye waayihii la soo dhaafay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay ayaa waxa uu ahaa mid wajiyo badan leh iyada oo ay ku gadaamnaayeen arrimo salka ku haya siyaasadda iyo dhaqaalaha marka laga imaado xiriirka guud ee Soomaaliya iyo Kenya waxaa jira xiriir ka dhaxeeya hoggaanka Jubaland iyo Kenya oo mararka qaar ka adkaa xiriirka dowladda dhexe iyo Kenya Odinga oo aaminsanaa in guud ahaanba isbedel lagu sameeyo Jubaland oo laga soo saaro ciidamada Kenyaanka ah ee jooga Jubaland iyo Ruto oo aaminsanaa in kaliya hoggaanka Jubaland la bedelo ayaa doorashada ku tartamay ugu dambeynna waxa guusha raacday William Ruto maadaama Kenya isbedel ka dhacay saameyn nooce ah ayay ku yeelanaysaa hoggaanka Jubaland waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Daahir oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika iyo Soomaaliya si guud ahaan geeska Afrika isbedel laba qola is haysa waxa isku hayay shucuubtu waxay rabaan oo shucuubtu isbedel bay rabeen oo ninka la dhaho Raila ninka la dhaho Ruto uu hogaaminayay iyo dadkii la socday oo moodo in systemkii hore ninka la dhaho Uhuru iyo Raila Odinga oo in badan dalka soo xukumay Kenya dadka hantida haysta aabahood ay soo shaqeynayeen oo dalka intoodii badnaa intuu dalku xornimada qaatay labada qoys baa dalka soo xukumay marka ugu horreeyay waxaad moodaa in uu codkii shacabku guuleystay oo lama filaynin in uu Ruto codka ku guuleysanaya iyo tiimkiisa waxaad moodaa marka dadka dabaqada hoose ah dadka fuqarada dadka masaakiinta codkooda inuu guuleystay waxa kale oo moodaa shucuubtu inay isbedelayaan geeska Afrika oo wax loo yeeriyay ayna ahayn laakiin shucuubtu ay awood leeyihiin waxa kale oo meesha muhiim ah in la xuso codka shacabku inuu awood leeyahay mar walba oo uu isbedel keeni karo oo taqriiban shacabku ay iska dulqaadeen qabtalkii saaraa inta kadib su'aasha haddaan u soo daadago si guud ahaan waxaad ogeydeen nidaamkii tagay wuxuu calaaqa la lahaa mar walba dawladaha darisku waxay in badan calaaqa la leeyihiin maamul goboleedyada iyagoo mar walba ka boodaya dawladda dhexe ee Soomaaliya inay la hadlaan iyo qawaaniinta dawliga ah xiriirka caalamiga oo dhan ay xusayaan in dawladda dhexe mar walba wasaaradda arrimaha dibadda ay calaaqada iyo madaxweynuhu calaaqada dibadda ay iyagu maamulayaan sadarteed waxaan isleeyahay Ruto si guud ahaan uga maslax badan yahay labadii qole isa saarayd Raila Odinga iyo ninkii la dhihi jiray iyo Uhuru uga maslax badan yahay Soomaalida waxaana isleeyahay dawladda dhexe iyo si toos ah ula xiran doona maamul goboleedyaduna waxay waayay doonaan meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay ku cararaan bay waayay doonaan baan isleeyahay xiriirka labada dal ayaa heerkii ugu xumaa gaaray 3 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu soo cusboonaaday muranka la xiriira lahaanshiyaha qayb ka mid ah xadka dhinaca badda halkaas oo la sheegay inuu ku jiro kheyraad dabiici ah oo qiimo badan leh balse Kenya ayaa xilligaas si toos ah ula xiriireysay maamulka Jubaland sanad kadib Jubaland ayaa la filayaa inuu ka dhaco isbedel maxaase laga filan karaa isbedelkaasi waa kan mar kale Dr. Daahir oo sharxaya arintaasi
si guud ahaan maamulka Jubbaland taqriiban doorashada hal sanad baa ka hadhay waqtigii loogu talagalay in uu ay doorashadu ku dhacdo. horta waxaan rajeynaynaa si guud ahaan doorashada sanadka inay ku dhacdo oo Soomaaliya dhaqan fiican baa dawladda dhexe ka dhaqan galay ee maamul goboleedyada dhaqanka inay fuliyaan baan horta rajeynaynaa si guud ahaan dhammaan maamul goboleedyadu waxa ku soo food leh doorashada marka doorasho xor ah inay la qabto horta waan filaynaa. waxaa kaloo filaynaa oo rajeynaynaa dawladda dhexe maadaama dawladdii hore laga diiday in ay ku darsato waqti dawladda dhexe inayna ogolaanin si guud ahaan maamul goboleedyadu inay waqti ku darsadaan waa inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo si xor iyo xalaalana ay u dhacdo. ognahay maamul goboleedyadu intooda badan waxa ay ka shaqeeyeen markay doorashada ku jireen dadkii bay cuna qabateeyeen dadkii bay cod u diideen baarlamaan ay iyagu wataan bay soo saareen shacabka Soomaaliyeed wuu dareemaya arrintaas. sadarteed waxaan rajeynaynaa dawladda dhexe oo madaxweynaha iyo wasaaruhu hogaaminayaan in ay doorasho xor iyo xalaal meesha ka qabtaan maamul goboleedyada ayna u ogolaanin in ay waqti ku ay kororsadaan. dawladda dhaxana iyo dawladda Kenya oo Ruto hogaaminayana waxaan rajeynayaa inay calaaqad rasmi oo tii dawladaha lagu yaqiino tii maamul goboleedyada ahayn inay dhacdo. siyaasiyiinta hogaamisa maamulka Jubbaland ayaa filan waa ku noqotay doorashada ka dhacday Kenya kadib markii uu ku soo baxay William Ruto noqdayna madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya oo ay u arkaan in aysan xiriir la yeelan doonin Jubbaland. doorashada ka dhacday Kenya ayaa waxa ay ku soo aaday xilli Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halku ka dhigtay Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la taa micnaheedu ay tahay in dawladaha xiriirka ay la yeelanayaan Soomaaliya ay si toos ula yeelan doonaan dawladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana halka ku soo xidhmaya beejkii maamul goboleedyada ay kula xiriiri jireen dawladaha dariska inala ah.